caawa khadka telefoonka kula yeeshay Dr. Xagle Toosiye ayaan ugu horreynba weydiiyay sida uu arko hadal dhawaan ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda maaliyadda oo siyaabo kala duwan wasiirka hore wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Salmaan Axmed Ciise Xagle Toosiye oo goor dambe telefoonka ee magaalada Dubai ugu waramay telefishinka caalamiga ee bulshada ayaa si adag u dhaliilay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirada wasaaradda biyaha iyo maaliyadda Salmaan Cali Khoore iyo Yuusuf Maxamed Cabdi waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo goor dambe caawa khadka telefoonka kula yeeshay Dr. Xagle Toosiye ayaan ugu horreynba weydiiyay sida uu arko hadal dhawaan ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda maaliyadda oo siyaabo kala duwan loo falanqeeyay waxaanu ku jawaabay mana garanayo ujeedada uu ka lahaa waan gartay laakiin waxaan u arkaa un kolleyda capacitigiisa iyo caqligiisa iyo hadafkiisa meeshuu gaarsan yahay ayuunbuu ka turjumay dhulbahante iyo lascarood iyo boolo iyo guud ahaanba dhulbahantana anaa xaal ka siinaya waan gartay wixii uu ku hadlay dhulbahante muusuu doortay muusena ninkan buu soo diray marka ana waxaa kamid aha raggii u ololeeyey muuse umalayn maayo muuse in uu wasiirkiisa kula socday hadalka noocana waan gartay dhulbaante ka dhigaya bilaadiin muwaadin la-aan wax noocaasa waan gartay waxaan ugu baaqayaa madaxweyne muuse in uu sida ugu dhaqsaha badan leh ninka u bedelo tallaabana ugu qaado edabdarrada waa edabdarro wey iyo dhaqanxumada uu wasiirkiisa maaliyaddu ula kacay gobolkaas waan gartay Dr. Xagle Toosiye mudane wasiir sida aan la wada socono wasiirku wuxuu yiri hadalkaygu waa la bedelay ma daawatay muuqaalka uu leeyahay hadalkaygu waa la bedelay isagu waan daawaday